gudoomiyaha gobolka Sanaag ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Axmed Jaamac Badmaax oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dadka ay Soomaaliland ugu baaqday inay ka baxaan deegaanada maamulka Soomaaliland oo ay ka mid tahay magaalada Ceerigaabo. Gudoomiyaha ayaa sheegay in magaalada Baran iyo guud ahaanba magaalooyin kale ee gobolka Sanaag ay yihiin magaalooyin Soomaaliyeed isla markaana ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan walaalahooda Soomaaliyeed. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maamulka Soomaaliland uu ugu baaqay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya inay muddo 22 bari ay kaga baxaan deegaanada Soomaaliland. Laascaanood dadkii joogay oo masaakiinta ahaa ee Soomaaliyeed in laga raray. dadka reer Laascaanood waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa aad isaga fiiriyaan oo ay raadaan inay leeyihiin wadankooda iyagu cidina aanay ku maamuli karin dad Soomaaliyeedna aan laga saari karin ayna ogaadaan kuwaas haddii maanta meesha ka baxaan berito inay iyaguna ay ka guuri doonaan oo wajiga iyo wadada ay kuwaas mareen iyaguna ay mari doonaan reer Laascaanood intaasaan leeyahay. dadka reer Ceerigaabo oo maanta gobol Sanaag laga masaafurinayo oo la leeyahay waa 15 casho loo qabtay haddaan ahay anigu gudoomiyaha gobolka Sanaag waxaan leeyahay soo dhawaadaan leenahay bulshada reer Sanaag waa idin soo dhaweynaysaa bulshada reer Barameed waa idin soo dhaweynaysaa ku soo dhawaada Baran baan leenahay gacmo furan baan idinku soo walaalaha ayaa tihiin walaalo Soomaaliyeed baa tihiin hadeera waxa jooga in badan oo kamida dadka oo ku nool oo aan ka duwanayn kuwa maanta Baran gudaheeda jooga dadka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag oo degmadiisa magaalada madaxiisa tahay Baran baan insha Allah ku soo dhaweynaynaa bulshada reer Barameedna gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa. ninka la yiraahdo Yuusuf Dabageed madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle waxaan leeyahay adiga oo ah madaxweyne ku xigeenkii dawladda Hirshabeelle ama hadalka aad tiri hadal qiimo u leh maxaan ku iraahdaa dadka bulshada Soomaaliyeed maaha waa hadal foolxun waa hadal karaamo darro u leh ummadda Soomaaliyeed iyo dadka aad madaxda u tahay waxa tahay madaxweyne Soomaaliyeed kelmadda iyada ah ee Baran aad ku magacawday ee aanay mudnayn waxaan ka rabnaa inaad jawaab ka bixisid iyo boolojis inaad ka bixisid anigoo magaciisa gudoomiyaha gobolka Sanaag. waxaan kaloo ku darayaa intaa Dabageedow waxaan leenahay dalka kala baro dadkana kala baro haddii kale wax badan baa sida hadeer maanta kaaga lumi doona ama khalad aad ku gali doontaa insha Allah adigana intaasaan ku leeyahay. Maxamed Nuur Cabdi warbaahinta qaranka magaalada Baran.